Maalinnimadii shalay waxay u ahayd dalka Bakistaan maalin ka duwan maalmihiisa kale kadib markii ay ka dhaceen wax lagu tilmaamay afgembi siyaasadeed. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Imran Khan ayaa xilka laga qaaday markii codka kalsoonida ay kala noqdeen dhammaan xildhibaanada mucaaradka. Kuwaasi waa xildhibaanada mucaaradka oo ay la garab ahaayeen ururo hore oo garab ula ahaa Imran Khan oo garabkiisa ka baxay xilli uu waqtigu ku xumaa. Ninkaas aadka u neceb amarada reer galbeedka. Ra'iisul wasaare Imran Khan ayaa xilka qabtay 2018. Waxaa caado ka ah dalkaasi Bakistaan in aanu jirin ra'iisul wasaare dhammaystay muddo xileedkiisa. Xildhibaanada mucaaradka ee kalsoonida kala noqday Mr. Imran Khan ayaa ahaa 174 halka loo baahnaa 172 mudane. Dhanka kale, waxaa la filayaa in uu xilka ra'iisul wasaare uu qabto ra'iisul wasaarihii kan ka horreeyay ee Nawaz Sharif walaalkiis oo lagu magacaabo Shahbaz Sharif. Dalka Bakistaan waxaa soo doorta ra'iisul wasaaraha xisbiga ugu aqlabiyadda badan leh golaha baarlamaanka. Waqti xaadirkanna waxaa ugu aqlabiyad badan leh xisbiyada mucaaradka ah. Imran Khan ayaa waxa uu eeday taageerada uu taageeray duulaanka Ruushka ee dalka Ukraine, kaas oo uu tegay Moscow in yar ka hor inta aanu dagaalkaasi bilaabmin. Sidoo 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. waxaa cabsi soo wajahday wadamadii taageeray Ruushka ama aan caddayn mowqifkooda sida wadanka Hindiya iyo Sacuudiga. Hindiya ayaa laga baqayaa in ay ka bilaabaan dagaalo diimeedyo kuwaas oo khalkhal geliya dalkaasi, halka Hindiya ay difaaca S-400 ka soo iibsatay Ruushka. Difaacaas oo Mareykankuna aad u neceb yahay. Difaacan awgii ayaa waxa ay sababtay in ay isku dhacaan wadamada Mareykanka iyo Turkiga kuwaas oo ka wada tirsan gaashaanbuurta NATO. Ugu dambeyntii, waxaa laga cabsi qabaa in dalkaasi Bakistaan ay ka dhacaan mudaharaadyo iyo kacdoono siyaasadeed.